xilligan casriga ah waxaa jira laba adduun oo isbarbar socda, adduunka online-ka ah iyo adduunka caadiga ah. Adduunka internetka ku dhex jira ee aan shaashadaha soo dhaafin wuxuu leeyahay wax walba oo looga baahnaa adduunka caadiga ah. Wuxuu leeyahay is-socodkii, meheradihii, badeecadii, baayac mushtarkii, xirfadlayaashii, goobihii waxbarashada, kuwii madadaalada, kuwii dalxiiska iyo kuwo kale oo badan. Sidoo kale tuugadiina way joogtaa. Adduunkii oo dhan ayaa u guuray. Aniga iyo adiga hadda waxaan ku kulanay dunida online-ka ah. Adduunkaaga caadiga ah waxaa laga yaabaa inaynan isku qaaradba joogin. Qaybta ugu muhiimsan ee naga qusaysa adduunka online-ka ah waa fursadaha iyo shaqooyinka ka dhex jira. Taasna waxaa xiiso u sii yeelaya isku furnaanta iyo soohdin la'aanta ka dhex jirta. Adigoo tuuladaadii jooga ayaad booqan kartaa meel kasta oo ka mid ah adduunka online-ka haddii aad internet haysato. Taasina waxay fursad u tahay shaqada aan doonayno inaan internetka ka dhex qabanno. Haddii aad adigoo magaaladeeda jooga aad ka furato dukaan, waxaa laga yaabaa in aad fursad u leedahay kaliya inay ka iibsadaan dadka aagga dukaankaaga degan. Balse haddii aad dukaan ka furato oo aad laba beer oo kaliya kaba ah ku iibiso online-ka, waxaa laga yaabaa inaad wiil iyo gabar Brazil iyo Mareykanka kala joogo ka iibiso. Taasina waa fursadda uu abuuray online-ku. Ma ahan alaab oo kaliya inaad ku iibin kartid, xataa xirfadaada ayaad la geli kartaa online-ka oo aad kaga shaqayn kartaa. Dadka maanta adduunka ugu taajirsan waxay ka macaasheen adduunka online-ka ah, sababtoo ah dadka adduunka jooga oo dhan ayaa macaamiil u ah. Haddaba siyaabaha online-ka lacagta looga sameeyo waa boqolaal nooc, balse guud ahaan waxay hoos yimaadaan 6 nooc oo kaliya. Wixii intaas ka badan iska ilaali inaad tiraahdid lacag baa ka sameynaya. Yaa lagu gaadin. Online store-ku waa inaad badeecado soo iibiso oo aad internetka ku taxdo. Taasina waxay ku suurtagelaysaa inaad dhisto website-iska loogu talagalay ee e-commerce website-iska ah. Badeecadaasi waxay noqon kartaa mid aad adigu leedahay ama mid meherado kale oo aad wada shaqayn leedihiin ay leeyihiin, taas oo aad ku leedahay commission. Khasabna maaha inaad ka fikirto halka aad joogto. Waxaa la marayaa heer adiga oo Soomaaliya jooga oo kombiyuutarkaaga dul fadhiya aad alaab ku samayn karto warshado ku yaala China, kadibna aad ku iibin karto suuqyada waaweyn sida Amazon. qaybtan waxa weeye inaad abuurto xog ay dadku xiiseynayaan, ha noqoto qoraal, maqal, muuqaal, sawir, farshaxan iyo wax walba oo la mid ah, iyo noocyo kale oo fan ah. Haddii aan sii dhexgalo waxaa ka mid ah inaad samayso qoraallo oo aad ku soo daabacdo website-yo ama blogging waxa loo yaqaano. Sidoo kale waxaa ka mid ah inaad abuurto koorsooyin online ah, inaad qorto buugaag aan internetka soo dhaafin ama e-books, podcast iyo wixii la mid ah. Way noocyo badan yihiin, waana kala duwan yihiin model ahaan noocyada xogta ee suuqa ku leh internetka ama online-ka. Muhiimaddu waa in xogtu qiimo leedahay oo ay baahi dabooleyso. Waxaad noo iibgeyn kartaa bulshada deegaankaaga iyo mid caalamkaba. Sidoo kale adigoo aan iibgeyn ayaad si bilaash ah u sii deyn kartaa si ay shirkadaha waxaysiiya ugu dhaxaysiiyaan alaabtooda. Taasna waxaa ka soo gali doona dakhli. qaybtan siyaabo badan ayaa dakhli looga sameyn karaa. qaybtan waxa weeye inaad suuq geyso badeecadaha iyo alaabaha ay dadka kala sameeyeen si aad commission uga hesho. Adigu waxba qaban maysid, kaliya waxa isku xireysaa dadka badeecadaha iyo adeegyada haya iyo dadka u baahan. Badeecadahaas iyo adeegyadaas waxay noqon karaan wax la xiriira labadii qodob ee hore aan ka soo hadalnay, ama waxay noqon karaan wax ka mid ah saddexda qodob ee inoo dhiman ee soo socda. Way moodelo badan tahay qaybtan oo waxa kala duwan commissionka noocyadiisu sida ay u dhisan yihiin. Shabakado badan ayaa u dhisan qodobkan dartiis oo ku hawlan sidii ay isugu keeni lahaayeen dadka raba in alaabta loo suuq geeyo iyo dadka diyaar waa inay wax suuq geeyaan. qaybtan waxa weeye inaad suuqa la aadid xirfadda aad leedahay oo aad adigu ka shaqaystid adigoo aan cidna u shaqeynin si xor ah. Waxaana jira shabakado ay isugu yimaadaan dadka xirfadleyda ah iyo dadka doonaya in shaqo loo qabto oo internetka dhexdiisa. Xitaa waayadan dambe shirkadaha qaybtoodu waxa ay door bidaan inay qof freelancer ah ama iskiis u shaqaysta u dirsadaan shaqooyinkooda halkii ay shaqaale caadi u qaadan lahaayeen. Dhammaan xirfadleyda kala duwan sida mid qoraal sameeya, mid looga sameeya, mid website sameeya, mid tarjumaana, wixii la doono dhammaantood way tagi karaan wayna ka shaqaysan karaan suuqyada. xirfad kasta waad ku shaqeyn kartaa adigoo gurigaaga jooga. Malaayiin qof ayaa maalin kasta shabakadahaas dhexdooda ka soo dalbada dad u shaqeeya. qaybtan waxay la xiriirtaa baayac mushtarka iyo maalgashiga. Waxaana ka mid ah suuqyada forex-ka, cryptocurrency-ga, stocks-ka iyo wixii la mid ah. Uma baahnid wax macmiil ah iyo sidoo kale wax suuq geyn ah. Waxay ku xiran tahay dhaqaalaha adduunka iyo isbedeladiisa oo kaliya. Adigu totally maba controlshid, waad saadaalin kartaa oo kaliya. Kadibna haddii aad fursad heshid waad ka faa'iideysanaysaa adigoo hadba u raacaya suuqa dhanka uu socdo. Faahfaahin dheeriya oo ku saabsan qodobkan haddii aad u baahan tahay ka daawo muuqaalkan. Sidoo kale haddii aad Facebook ka fiirsanayso ka fiiri linkigiisa qaybta commentiga. qaybtan waxa weeye inaad samayso software program adeegyo u fuliyo dadka. Dadku way iska diiwaan gelinayaan, waxaadna ka qaadaysaa lacag kiro oo bilo ah. Muhiimaddu waa in software-ku uu yahay mid xalinaya cilad ama mushkilad, taasoo keenaysa inaad bil walba kiradaada hesho ayagoo ka faa'iideysanaya programkaaga. Way noocyo badan yihiin softwaresku, waxaana abuuri kara qof kasta oo yaqaano programmingka sidoo kalena haysta fikrad. Laakiin xataa haddaad aqoonin waxaa jira dad kuu sameynaya. Barnaamij kasta oo aad ku aragto online-ka oo lacag laga sameynayo waa un 6daas midkood ama iyagoo la isku daray oo mushakal ah. Sidoo kale waxaa jira intaasoo
istaraatiijiyadood iyo model oo loo sameeyay 6 wado ayagoo laga sii dhigay boqolaal wado balse si guud waxa weeye 6daas waxaana filayaa inaad fahantay sawirka guud ee ku saabsan sida online-ka lacag looga sameeyo waxaan rajeynayaa inaad wax ka faa'iiday muuqaalkan haddii aan isku cusubnahay iga soo raac barahayga bulshada Facebook, YouTube iyo meelaha kaleba mahadsanid